Qalcatul Marjaan waa qalcad aad u weyn, magacana waxaa loogu bixiyey sababtoo ah ayadoo dhammi waxay ka samaysan tahay dhagaxa loo yaqaano marjaanka. Balse arrinta la yaabka leh ma ahan qalcadda, laakiin sheekada ugu xasaasisani waxay tahay in qalcaddani uu dhisay hal nin oo keliya, waxaana lagu magacaabaa Eduardo. Muddadii u dhexaysay sannadihii 1923 ilaa 1951, waxaana laga yaabaa inaad u fahanto qofka aan ka sheekaynayo in uu yahay qof mucjiso ah, bini'aadankana wax dheer. Laakiin qofka aan ka hadlayo waa nin caadi ah, miisaankiisuna uu yahay 50 kiilogaraam, halka dhirirkiisuna uu gaarayo 150 sentimitir oo keliya. Balse wuxuu awooday isagoo keligii ah in uu qalcaddani uu dhiso. Eduardo wuxuu ku dhashay waddanka Latvia 1887. Da'diisu waxay ahayd 26 jir markii uu bara ka noqonayay mid ka mid ah iskuullada waddankiisa ku yaalay. Wuxuu qorsheynayay in uu guursado inan uu jeclaa oo la oran jiray Anjis, taasi oo ka yareed 10 sano. Laakiin waxaa dhacday in ay guurkiisa iska diido maalin ka hor inta aan loo galbin. Laga yaab in ay u diiday farqiga da'da ah ee labadooda u dhexeeya. Arrintaasi oo shoog ku noqotay Eduardo, wuxuu noqday mid murugaysan inta noloshiisa ka harsaneed. Si uu isku ilowsiyo xasuusteeda iyo murugadeeda, Eduardo wuxuu qorshaystay in uu aado waddanka Maraykanka. Muddo markii uu halkaasi ku noolaa, wuxuu go'aan ku gaaray in uu murugadiisa u beddelo xasuus waarto. Wuxuu iibsaday dhul, isagoo gudagalay in uu dhiso qalcaddiisii qarsooneed. Dhismaheeduna waxay qaadatay muddo 28 sannadood. Intii uu ku guda jiray sannadahaasi joogtada ah, Eduardo wuxuu soo qaaday 1,100 tan oo dhagaxaan ah. Keligiisa ayaana ka howlgalayay, isagoon adeegsanaynin aalado casri ah. Midaasi oo amakaag badan ku abuurtay dadyowga caalamka. Arrinta la yaabka ahna waxay ahayd in Eduardo uu shaqaynayo oo keliya xilliga habeenkii, isagoo iska ilaalinayay in ay dad arkaan. Waxaa dhacday in Eduardo la weydiiyey sida isagoo keli ah shaqadani adag u qabtay, isagoo haysan aalado casri ah. Wuxuuna ku jawaabay, waxaan ogaaday sirta soo jiidashada. Waxaan helay waddadii lagu dhisay amaba habkii loo dhisay amhaaraadka Masar. Maadaama uu caddaystay in xilliga habeenkii qalcaddiisa uu dhiso, dadka qaar ayaa go'aansaday in ay si dhuumasho ku daawadaan qaabka uu wax u dhisayo. Waxayna arkeen arrin mucjiso ah oo aan dabiici ahayn, khaasatan marka uu dhagaxaanta soo qaadayay. Fartiisa ayuu dhagaxa ku tilmaamayay, dhagaxana keligiisa ayaa booskiisa isaga dhaqaaqayay, isagoo tegayay booskii loogu talagalay. Waxyaabaha kale ee la yaabka leh ee dadku soo ogaadeen waxaa ka mid ah dhagaxaanta oo isku dhegayay shamiindo la'aan. Eduardo ma uusan ilaabin in uu qalcaddiisa ku qurxiyo nashqado iyo waxyaabo casri ah. Markii uu dhammeeyey dhismaha qalcaddiisa, waxaa la weydiiyey sababta uu u dhisay, wuxuuna mar waliba ku jawaabayay gabadhii quruxda badneed ee aan jeclaaday darteeda. Bishii Nofeembar 1951, Eduardo waa uu xanuunsaday, waxaana loola cararay isbitaalka, kadibna halkaa ayuu ku geeriyooday. Kadib 28 sannadood oo uu ku hoolanaa dhismaha, qalcad noqotay hal xiraalo weyn oo ay culummada ku wareeraan. Kumanaan dalxiisayaal ah ayaa booqda qalcaddiisa, waxayna isweydiiyaan oo keliya hal su'aal: sidee hal nin oo keliya uu u dhisi karaa qalcadani? Intii uu noolaa, Eduardo wuxuu alifay 5 buug oo aad u yaryar. Qaar ka mid ah buugaagtiisana wuxuu kaga hadlayay akhlaaqiyaadka. Dadka qaar waxay ku murmaan in ay jirto sir qarsoon oo ka dambeysa jumladihiisa iyo hadallada oo Eduardo isticmaalayay. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay, ma awoodda jacaylka uu leeyahay darteed ayuu Eduardo ku dhisay qalcadiisa? Eduardo, sida ay badhahaan dadka qaar, in jacaylku uu mararka qaar macquul ka dhigo waxa aan suurtagalka ahayn. Waxaa la sheegaa in bishii Agoosto 1992 ay dabeelo xoog badan ku dhufteen gobolka Florida, laakiin qalcaddani dabeelaha wax saameyn ah kuma yeelan. Adigani daawanayo muuqaalkan, maxaad ka aaminsan tahay qalcaddaasi? Ma qalcad oo keliya mise waxaa jirta
sir ka dambeysa dhismaha qalcaddaasi iyo shakhsiyadda ninka dhisay qalcaddani oo loogu magac daray Qalcatul Marjaan ama Coral Cast.